wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha mudane Maxamed Kayn Axmed warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Diri oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay isla markaana bogaadiyay heshiiska rasmiga ee ay wada gaareen labadii arday ee dhawaan dirirtu ay ku dhaxmartay deegaanka Celaf Weyn. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu yiri in muddo ah waxa aad iyo aad isafgarad buuxda ku wada shaqaynayay oo hawsha deegaanka Celaf Weyn iyo nawaaxigeeda ugu anbabaxay labada dhinac muddada arrinta shaqaaqadii ay dhexdooda ka socotay. halkan waxay kula sii shireen xukuumadda, waxay kula sii shireen deegaanadooda, waxay kula sii shireen iyaga dhexdooda maxaan ku dhahdaa iska wada shiray, go'aan bay wada qaateen. haddii ay anbabaxeen oo xaggaa joogeen oo annagana xaggaa nagala soo shaqaynayeen maamulka xukuumadda ee jooga gobolka Sanaag guud ahaantii iyo deegaanka Celaf Weyn labadaba si fiican ayay ula shaqaynayeen. sida xaqiiqada ah labada dhinac waxay aad u sameeyeen dhabar adayg, dadaal, daacadnimo, adkaynta nabadda iyo wada noolaanshaha labada degaan. saaka wuxuu ka furmay shirkii magaalada Celaf Weyn si aad u qurux badan oo walaalnimo leh, oo sokeeye leh, oo tol iyo xidid leh, oo deegaan leh ayaa saaka shirkoodii ay u fureen. go'aamo rasmiyan oo maxaan ku dhahdaayay lagama maarmaana oo midho dhal ah oo dhaxalgalana ay uga soo jeediyeen. maanta halkan waxaynu ognahay waxa ku shiraya dhammaan golaha wasiirada oo dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu hogaaminayo, madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiirada. waxaa la go'aan lagu qaatay in la hambalyeeyo anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa oo u bogaadinaynaa oo u baarigaynaa maxaan ku dhahdaa qaraarka ay soo saareen labada dhinac. waan ku barbar taaganahay, waan idinkula jirnaa, waan idinku xoojinaynaa, aad iyo aad baynu uga shaqaynaynaa. nolosha ayaa waxayna faraysaa meeshay nabadi taallo ayaa nololina taalla oo horumar yaalla oo bulshada guud ahaantii iyo gaar ahaan inta maatada ahee jilicsan ay dantoodiiyo noloshooda ku jirta. waannu idin hambalyaynaynaa, waannu idin bogaadinaynaa. aad iyo aad baa u mahadsantihiin, waannu idinku garab taagannahay, waannu idinkula shaqaynaynaa. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Diri ayaa si weyn u soo dhaweeyay isla markaana bogaadiyay. halkan waxaanu hambalyo bogaadin iyo dhiirigelinba uga jeedinaynaa labadii dhinac ee dhibaatada ku dhex martay degmada Celaf Weyn. waxaanu leenahay hambalyo, waa idinku bogaadinaynaa hawsha ay haysaan. waa tii loo baahnaa, waa tii ay ku jirtay danta dadka wada degay walaalaha ah, danta qaranka iyo guud ahaanba. waxaanu leenahay halkaa hawshu waa intaasoo ugala sii dhowaataan, aad tuutaha u xidhataan, ha guntiga u giijsataan, u soo jeedaan oo sida ugu dhaqsaha badan leh ee ugu muxuu ahaa habboon aad hawsha ay nooga soo gabagabaysaan. hawshaasi runtii ummaddii iyo walaalihii meesha wada degaya way riiqday oo dadkay ka reebtay, dowladdana way ragaadisay. waxaanu leenahay raganimo ayaad muxuu ahaa maanta u badheedheen ood ballan qaadeen hawsha inaad soo afjiraysaan idinkoo labadii walaalaha ahaa oo idin bogaadinaynaa.